بسم الله الرحمن الرحيم sidaan wada ogsoonnahay waxaa biloomay dagaal culus oo adduunka isbedel weyn ku sameyn doona isbedelkaas isaga ah wuxuu u baahan yahay bal in aanu u eegno il Soomaaliya anagoo ka duulayna yani dagaalka inaan ku fiirino indha Soomaaliyeed ku fiirino sida dagaalka sidee buu noo saameynaya khatar intee leeg buu nagu soo jiidaya faa'iidooyin intee leeg baan ka faa'iidi karnaa maxay yihiin waxyaabaha durbaba la arkay isbedelada ah oo dagaalkaas soo kordhiyay sida wada ogsoontihiin Soomaaliya waxay ku taalaa mandaqada geeska Afrika ama bariga Afrika dagaalku wuxuu ka dhacayaa waa halkan dalka Iran waxa soo weeraray dalka Mareykanka iyo Israa'iil dowladda Israa'iil ayaa soo weeraray meelaha Mareykanku uu culays ka saarayo waxa weeye ama Iran ay culays ka saarayso si ay u xanuujiso reer galbeedka waxa weeye wadamada khaliijka ah runtii waa wadamo kullis ay ka dhisan yihiin boqortooyooyin uu Mareykanku ilaaliyo sida daraadeed Iran iyada oo arinta iyada ka falcelinaysa ayaa waxa ay sameysay in ay xanuujiso saldhigga awoodda Mareykanka oo waxa lagu yeero petrodollar Soomaaliya marka aan u soo noqono dagaalka isaga ah durbaba waxa la arkay saameyno xoogan oo ka soo gaaray dhanka maciishada sida shidaalka iyo wixii la mid ah Soomaaliya meelaha wax uga yimaadaan waxa kamid ah wadanka Imaaraadka Carabta oo halka ku yaala waxa kale oo kamid ah wadanka Hindiya iyo Pakistan oo raashinku uga yimaado sidoo kale Iran laftirkeeda Soomaaliya waxa uga imaan jiray shidaal iyo badeecooyin kala duwan haddaba waxaan rabnaa in naqaash joogto ah oo soconaya arrimaha aan ka hadlay oo Soomaaliya meesha ay ku taala dagaalku meesha uu ka socdo saameynta uu leeyahay waxyaabaha ka dhalan kara inaan ku fiirino indho dadka Soomaaliyeed maxaa arinta iyada ay waxa soo kordhay maxaa fursado ah maxaa khatar ah maxaa dhibaato ah in aynu ka sheekeysano aanu naqaashno insha Allah waxaan qorsheynaynaa in uu noqdo naqaashku naqaash furan oo akhyaarta daawadayaasha ah faalooyinkiina iyo su'aalaha aad qabtaan iyo suggestiskiinaba aan ku tixgelino kadibna aan ka sameeyno taxliil aad iyo aad maaragtay u xeel dheer geopoliticska ama juqraafiga iyo siyaasadda isku xiran ee adduunku waa muhiim waana dalalka waxyaabaha ay ku dhisan waxyaabo ay ku tartamaan oo fursad ah tusaale ahaan oo kale wadankeena Soomaaliya meesha uu ku yaalo marka la fiiriyo fursadaha uu haysto iyo istaraatiiji ahaan ahmiyadda uu leeyahay hadii aynu maal galino oo aynu isticmaalo kaliya iyada waxay ku abuuri kartaa fursado dhaqaale iyo horumar sida daraadeed marka waxaan rabnaa in aanu hadii Ilaahay yiraahdo naqaashkaas iyo discussionadaas ay noo socdaan xalqadan koowaad waa introduction iyo furfuritaan kadib wixii ka dambeeya insha Allah waxaan galeynaa in aan ka sheekeyno dagaalka socda fursadaha uu leeyahay khataraha uu abuuri karo aan ku fiirino indho Soomaaliyeed ama indhaha dalka Soomaaliya maxaa ku haboon maxaa la gudban waxaan sidoo kale codsanayaa in dheergaradka aqoon-yahanka iyo dadka experts ah oo runtii jecel in ay bulshadooda garashadooda contribution ku sameeyaan in ay naqaashka xoojiyaan ay maaragtay ay noqoto موضوع كليا أنا كهذين أي نقطة موضوع بالهرم أو ميلا بدن لغة نقاشه وحن برنامج كان وكب حدونا بلاتفورم كمضشة ندركرت فورم هدي إلهي هذا حنرجعني إن شاء الله النقطة discussion أسب أو أن نوعيز هوري الوعي قول بين رجعني